بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، walaalyaal waxaa ku guda jirnay kitaabu التوحيد الذي هو حق الله على العباد. waxaa inoogu soo wardambeysay xadiiskii mucaad iyo sharxiisa. xadiiskaas oo ina fahamsiiyey xaqa allah subxaanahu wa tacaala uu leeyahay iyo xaqa ay addoommadu yeelanayaan marka ay gutaan xaqiisa, iyo bishaaradii loo diiday mucaad iyo sababta keentay in la yidhaahdo ha u bishaarayn dadku ayaan soo ogaanay. masaa-ishii ayaan soo galnay iyadoo aan bilownay mas'alada koowaad, xikmada loola jeedo jinka iyo insiga abuurkooda ka dambeysa, iyo mas'alada labaad inay cibaadadu tahay waa towxiid. cibaadada la sheegayaba inay towxiid tahayo towxiid la-aantiisu aysan cibaadadu ansaxaynin. dooduna ay ahayd markii horeba towxiidku qabsada iyo qabsan mayno. masaladii saddexaad ayaan kasoo warabnay qofkaan la imaanin towxiidku inuusan ilaahay caabudin subxaanahu wa tacaala. gaaladiina loo daliishaday aayaddii ahayd walaa antum caabiduuna maa acbud, oo macnaheedu yahay waxaan anigu ka cibaado yeelanayo goortaad ka cibaado yeelataan goortaasaan isku mabda' nahay, laakiin haddii aada diidaan waxaan anigu caabudayo keligiina aada cibaado u gaaryeeli weydaan, cibaadadiinu ma aha markaa wax jira ma aha. cibaadadiinu wax jira noqon maydo. ilaan ayagu gaaladu wax kale waa ogolaayeen, laakiin ilaahay shurakada ka daaya, cibaadadiisa waxaad ugu daraysaan ka daaya. waana ogtihiinoo goorta ay xajinayaan waxay dhihi jireen labeyk allahuma labeyk labeyka laa shariika laka labeyk ilaa shariikan huwa lakay dhihi jireen. bimacnaa waa sida hadda anigu aan dhahna sooma, waana la mid. anagu waa dhahnaa sooma labeyk allahuma labeyk labeyka laa shariika huwa, yani labeyk sooma hayn. meesha markay marayaan bay waxay dhihi jireen ilaa shariikan huwa laka. soo qalad maha marka? waa qalad wey. ilaahay waan ku ajiibnay, allah waan ku ajiibnay. ilaahay wax kula wadaaga ma jiro, cibaadadaada kula wadaagta ilaa shariikan hal qofoodaa jira, hal shariik hal baa wax kula wadaaga. waakey waa asnaamta wey, sanamkay farta ku fiiqayaan. ilaa shariikan huwa lak, kan baa wax kula wadaaga ilaahayo, laakiin wax kaloo wax kula wadaaga ma jiro. taasay dhihi jireen. marka taa wey midda laisku haystay sida sheikha uu sheegay. waxaan isla soo gaarnay marka masaladii afaraad ayaan isla soo gaarnay. alraabicatu, masalada afaraad, alxikmatu waa xikmadda iyo ujeedada loola jeedo fii irsaali rusuli, rususha soo diridooda. rususha soo diridooda waa xikmadii ka dambeysay oo maxay ahayd? walaqad bacahnaa fi kulli ummatin rasuulan, waan ogaanay ummad kasta in loo soo diray rasuul. hadda sheikhu wuxuu leeyahy xikmad baa jirto ka dambeysay in rasusha lasoo diro. maxay ahayd? an icbud ullah wey, ilaahay caabudaa lala soo diray. marna waan soo aragnayoo cibaadadu jin iyo insi waxa loo abuuray waa un cibaado. ummad kasta waxa yani waxa weyaan rasuul loogu soo diray waa inay ilaahay caabudaan. xikmadaasaa ka dambaysa wey, saasaa loola jeeda. alxikmatu waa ujeedada ka dambeyso fii irsaali rusuli, rususha lasoo diridooda. rususha lasoo diro xikmadda ka dambeysa
ayaan ka fahamnay wey aayaadkii aan soo marnay oo ah walaqad bacathnaa fi kulli ummatin rasuulan an icbudu llaha ilaahay caabuday ahayd taa mid wey meel loo dhig alkhaamisatu mas'alada shanaad ana arisaalata fariinta alle cammat waxay gaartay kulla ummatin ummad kasta isla fahmna soo haa ilaahay risaaladiisa iyo xaqa iyo kutubta uu soo dirayay waxay gaartay ummad kasta maxaa u daliila walaqad bacathnaa fi kulli ummatin rasuulan u daliila idana isla aayaddaasa u daliila oo ilaahay subxaanahu wa tacaala fariinta xaqa ah waa gaarsiiyey ummad kasta ummad aysan gaarin fariinta xaqa ah aada bay u yarta haddii kalena maba jirtaba marka way gaartay ummad kasta fariintii allah subxaanahu wa tacaala way gaartay haddii la cadaabayo maalinta qiyaamaha way mutaysteen sababto waciyaan haddaad diiddo oo cibaadada lagugu yeerayo aada diidaay cadaabkaa kugu dhaboobaya cadaab baad mutaysanaysaa taasaa loola jeedaa macnaha marka risaalada way ku soo gaartay xaqi waa ku soo gaaray wanaagga waa laguu sheegay waddada saxda waa lagu tilmaamay nebigu wuxuu sal ly slm tani waa waddadeeda raaca qaada walaa tattabicu subula waddooyinka kale iska jira oo shakiga ku jiro oo murunka ku jiro oo yacni waxaweyan doodda ay ku jirto ha raacin wixii laisku raacsan yahay raac oo hadda waxa ilaahay subxaanahu watacaala nagu waajibiyaan lala imaan karin oon la wada gaari karin oon la wada samayn karin oo laga wada caajisaya wax kale ba maxaa ku geliya oo murun ku jira wax kaloo murun ku jira buuq ku jira yacni la dhaleecaynayo maxaa ku geliyey marka shirkigu waa la eedeeyaa waa la dhaleeceeyaa shirkiga iyo ehelkoodaba saa daraaddeeda baa la doonayaa inaad waddadaas raacdo toosan waddada toosan oo nabiga tilmaamay ana hada siraatii mustaqiiman sooma hayn aayaddi wa ana hada siraatii mustaqiiman fattabicuuhu war waa kan waddada saxdee raaca waddooyinka kalena iska jira saasuu yidhi nabi sal lla alay wasalam ana arisaalata fariinta alle cammat way gaartay kulla ummatin ummad kasta fariinta alle way gaartay ummad kasta way gaartay taa ayaan mas'alada yacni uu ka dhigay mas'alada shanaad ee fahamkiisa ah inay gaartay fariinta alla soo diray ummadaha o dhan ay gaartay assaadisatu mas'alada lixaad ana diina alambiyaa yani ana diina ambiyaa'i ana diina alambiyaa'i dheh nebiyada diintoodu waaxidun waa mid wey diinta alle waa mid maxaa laga wadaa dhammaan diimaha ilaahay soo diray waa isu mid yacni waxaa dhacda marka in dhaqamada qaar aynu ku kala duwanaano taana waxa weeyaan waa dadka iyo dhaqankooda iyo dadka xilligaa jira ee qaabka loola dhaqmi karay ku xihanta laakiin ujeeddada waa isku mid ujeeddada iyo sababta loo soo diray rasusha waa isku mid waa in ilaahay dadka ka yacni lagu xiraa wixii kaloo dhaqamo hoose ah yaa xeer hoosaad ah taa iyadaa si gooniya baa looga tashan karaa oo hadba ummadda markaa rasuulka loo soo diray qaabkay u dhaqmayaan baa markaa iyada waxa ka bedel lagu sameynaya hadda waxaa mithaal u ah xilliyadii hore nabiyullaahi aadam calayhi salaam labada walaalo ay lasla dhalo haddana laba kaley dhalaysaa afar wey midkii hore wiilkooda iyo kuwa dambe gabadhooda ilan gabar iyo wiil baa la dhalay waa la isku darayaa waa isguursanayaan waa laba walaala hadda waana isguursanayaan hadda diinteenna ma ku banaanta jawaabtu waa maya laba walaalo inay isguursadaan diinteenna kuma banaana laakiin markaa waa banaanayd marka hadba macnaha sida wax loo xalin kara xilligaasaa loo xalinayaa laakiin markii hore waa in dadka diinta ilaahay subxaana wa tacaala lagu xiro oo ilaahay keliya ay caabudaan taasaa loo yani waxaweyaan loola jeedaa taasaa loola jeedaa marka
nabigana salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa sheegay diintu inay halta ambiyaduna inay isku ujeeddo ahaayeen oo nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi alambiyaau ikhwa waddiinu waaxid buu nabi sal alay wasalam war ambiyadu waa walaalo diintuna waa hal buu yidhi nabi sal alay wasalam xadiid kalena wuxuu ahaa ambiyada kulankooda haddaynu nahay ambiyada kulankoodu waxaan nahay buu nabi sal alayhi wasalam sida caruur isku aabba ah oo kale hooyo ah yacni caruur isku hooyo oo kale aabba oo kale saasoo kale aan nahay waa dad yacni walaalo ah ayaynu nahay buu nabi sal alayhi wasalam ayaynu nahay marka ana diina alambiyaai diinta ambiyada waaxidun waa mid wey waa mid wayna ka midaysnaayeen cibaadada alle iyo in keligii loo gooni yeelo mana jirin diin banaynaysay in ilaahay wax lala wadaajin karo diin banaynaysay ma jirto waa isku mid marka walaqad bacathnaa fi kulli ummatin an icbudu llah midaasay ka midaysnaayeen mid walba wuxuu dhahayay laa ilaaha ila allah dhaha quluu laa ilaaha ila allah tuflixuun dhaha laa ilaaha ila allah waad liibaanaysaan saas ayay markaasi dhihi jireen dadkii markaa loo soo diray ilaa laga yimid nabi maxamed salawaatu rabbi wasalamu caleyh laga soo gaaray isagana waa tii uu dhihi jiray war ilaahay caabuda ilaahay baan idinkaga ergeynayaa adeerow ilaahay caabud adeerow kelimada tawxiidka qir ilaahay baan kaaga ergeynayaa waan kuu shafeeci doonaa waa tii uu dhahay nabi maxamed sal alay wasalam asaabica mas'alada toddobaad almas'alatu waa mas'aladii alkabiiratu ee weyneyd yani ana cibaadat allaahi ilaahay cibaadadiisu laa taxsulu ma hagaagayso ilaa bilkufri inaad ku gaalowda mooyaane bitaaquuti kan la caabudo alla keyrkii inaad ku gaalowdo daaquudka bay cibaadadu kuugu xasili bay cibaadadu kuugu hagaagi ood ilaahay keliya aad ku xirnaato taasay cibaadadu kuugu hagaagaysaa waxa kaloo ilaahay keyrkii la caabudana aad tirahdo waan ku kufriyey kafarnaa bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawa cadaawadaa naga dhexayso inta caabudda ilaahay keyrkii waan ku kufriyey dheh kafarnaa bikum dheh marka ilaa bilkufri inaad ku gaalowda mooye bitaaquuti alla keyrkii kan la caabudo daaquudku waa ilaahay keyrkii wixii la caabudo waana arki doonnaa fa fiihi waxaa ku jira oo ku sugan baabkan macnaa qowlihi tabaaraka wa tacaala ilaahay hadalkiisa macnihiisa ku suganba faman yakfur bitaaquut soomayn aayaddii faman yakfur bitaaquuti wa yu'minu bihi faqad istamsaka bilcurwati alwuthqaa u fiirso ilaahay hadalkiisa ku sugan qofkii ku gaalooba daaquudka waa kan ilaahay keyrkii la caabudayo wey daaquudka qofkii ku gaalooba uu yidhahdo waan ku gaaloobay oo wayu'min billaahi ilaahayna rumeeya oo ilaahay keliya cibaadada u gaar yeela faqad istamsaka bilcurwati alwuthqaa wuxuu qabsaday xereg adag mareeg adag buu qabsaday qofka noocaas oo kalenta meel adag buu ku dhagay wey oo dad badan aysan ku dhagi karin buu ku dhagay asagu macnaha waxa weeye mas'alada weyn ee ugu weyn waxa weeye cibaadadu sideedaba inaysan xasilaynin oysan hagaagaynin ilaa inaad ku gaalowdo waxa ilaahay keyrkii la caabudayo waxay doonaan ha noqdaan imisaa la caabudaa hadda imisaa la caabudaa wax badan baa la caabudaa marka inaad ku gaalowdo dhahad aniga kuma jiro waa ku gaaloobay qofka isaga ah inaad tidhaahdo daaquudku waa waxa la caabudo ilaahay keyrkii asagana dalbanaya in la caabudo oo raaliga ka ah sababtaasna waxay ku dhacday haddii la yidhaahdo wax kastoo ilaahay keyrkii la caabudo ha lagu gaaloobo waxaa imaanaysa xataa nebiyullaahi ciisa ha lagu gaaloobo sababtu waxa weeyaan nebiyullaahi ciisa laftirkiisa la caabudaa hadda ooma dad baa caabuda nebiyullaahi ciisa bay caabudaan marka asagu ma aha marka nebiyullaahi ciisa daaquud ma aha waxyaabo badan waxaa jira sidaas oo kaleenta ah oo ayagu la qasbanayo laakiin ayagu aan raalli ka ahayn culimada qaar baa ka mid a oo intay geeriyootay hadda la iska qasbanayo ayagu waxaa laga yaaba inaysan raalli ka ahayn
waxaa geedaha iyo xayawaanada iyo ayagu raalli kama ah laakiin waa la qasbanayaa dad baa ayagu ka cibaado yeelanayo marka kuwa noocaas oo kaleentaa ma soo gelayaan oo haddii aad tiraahdo waan ku gaaloobayaa wax kastoo ilaahay keyrkii la caabudo ma soo gelayso marka waxaan markaa arrintaa daah lagu saarayaa waa qofka inuu asaga raalli ka yahay qofka la caabudayo oo cibaado laga yeelanayo oo yacni waxa weeyaan laga cibaado yeelanayo oo ama la baryayo ama wax la weydiisanayo waa inuu asaga raalli ka yahay hadda way jirtaa dad badan oo ayagoo culimonimo sheeganaya laakiin intaysan geeriyon ka hor ka dardaarmayo qubuurahayga la soo ziyaarto ka dardaarmayo oo ayaga jecel inay ooliyoobaan oo dadka ayagu la caabudayo qubuurahooda la ziyaaranayo inay ka mid noqdaan jecel kuwa noocaas oo kalenta wey kuwa la doonayo in lagu kufriyo oo la yihahdo waan diidnay saa daraaddeed baa culimadii geeriyootay ee hore ee wanaagga lagu sheegay wanaagooda waa in loo qiraa oo aan la dhihin ma wanaagsana marba haddii la caabudayo waa sheekh cabdiqaadir jaylaani oo kale yani waxa weyaan wanaag baa lagu sheegay sooma waa sheekh wanaagsan nin wanaagsan buu ahaa nin sidaan buu ahaa baa lagu sheegay saa daraaddeed waa inaan wanaagiisa u qirnaa laakiin dadka asagu caabudaya oo asagu ka cibaado yeelanayo oo qubuurihiisa yani waxa weyaan yani ku foorara oo qabrigiisa ku foorara macnaha waa inaynu dhahnaa dadka qalad bay ku sugan yihiin dadka waa mushrikiin ayaga waa inaan dhaleecaynaa marka ayaga waa inaan ku kufrinaa camalkooda iyo ficilkooda waa inaan ku kufrinaa oo aan dhahnaa waxa aad wadaan waa wax qalada wax saxa maa qof dhintay inaad qabrigiisa tagtaan nabigaa diiday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh in qabrigiisa la tago ama lagu laablaabto hadda sanad walba la ziyaarta sooma qubuuraha qaar sanad walba sanadkan ziyaarada waa inaan ka qayb galaa ku leey sanadkii hore aan ka baaqdayo sanadkan waa inaan ka qayb qaataa marka nabi sal ly slm wuxuu yidhi war qabrigayga ha ka dhiganina kuwa aad ku soo laalaabataan mid aad ku soo laalaabataan qabrigayga ha ka dhiganina mid yani ciida oo ku soo laalaabataan ha ka dhiganina ilaahay rasuulkiisa baan ahaye ilaahay rasuulkiisa idhaha igu salliya way isoo gaaraysaa buu nabi sal lla alay wasalam markaad ku salliso way gaaraysaa salliga waa ammaan weeye saa daraaddeeda nebigaa yidhi qabrigayga ha ku soo laalaabanina axad kaloo laga ogolaanaya ma jiro in qabrigiisa lagu laalaabto la ziyaarto mar walba la ag taagnaado kan jaahilka muxuu moodayaa waxaani waa meeshan wax karaamo laho ku jira u leeyahy wax karaamo laho qaaliya baa meeshan ku jira saa daraaddeed baa laga yaabaa inuu ku kadsoomo caabudaba ka cibaado yeesho ilan waa jaahil culimo badanaa laga yaaba asaga uu ku heebaysanayo meesha uu ku arko markaasuu le meeshan waxa ku jira wax yar ma ah dhayman baa meeshan ku jira war bini aadam baa meeshan ku jira ilaahay subxana wa tacala ha u naxariisto ilaahay ha cafiyo ilahay subxana wa tacala jannadiisa ha geeyo qabrigiisa allah u iftiimiyo yacni waxa weeyaan qabrigiisu su-aasha allah u fududeeya dhaha laakiin in maanta dhan laga badbadiyo nabigaa diiday sal lla alay wasalam ka badbadinta noocaas oo kaleenta ha igu xadgudbin buu yidhi sida ciisaba ay ugu xadgudbeen yacni waxa weeyaan muxuu ahaa ahlu kitaabka ugu xadgudbeen annaha igu xadgudbina sida ciise ibnu maryam loogu xadgudbay oo kale annaha igu xadgudbina sababto waxa weyaan ciisa nabiyullaahi ciisa waxaa la gaarsiiyey heer ilaahnimo waa ilaahaygii labaad bay dheheen saasay dheheen waa alla labaad alla wiilkiisa wey waa ku xadgudbeen marka meel sare oosan gaarin bay gaarsiiyeen markasaa daraaddeed bu nabi sal slam wuxuu sida ciise loogu xadgudbay annaha igu xadgudbina nebi baan ahay rasuul baan ahay rasuulallaahi idhaha bis intaasaa igu filan igu salliya khalaas marka qof kale oo nebi ka soo haray oo asaga lagu xadgudbi karo ma jiro beri buu idin su-aali doonaa beri buu ilaahay agtiisa idinkaga doodi doonaa oo idin dhihi doonaa dadkan baa ilaahay ugu xadgudbay marka iska ilaaliya wax sahlan ma marka daaquudka ku gaalooba wixiiba ilaahay keyrkii la caabudo oo asagana dalbanaya in la caabudo laga cibaado yeesho oo isjawxaarinaya oo qof weyn iska dhigaya oo raba in yani waxa weyan la weyneeyo qofka noocaas oo kale lagu gaaloobo saasaa loola jeedaa asaabicatu mas'alada todobaad almas'alatu waa mas'aladii waa arinkii alkabiiratu ay weynaa arintii weyneed wey arinta weyn maxayd yani ana cibaadat allaahi ilaahay cibaadadiisu laa taxsulu kuu hagaagi mayso ma hagaagaysa wey ma wanaagsanaanayso kumana xasilayso kuma wanaagsanaanayso ilaa bilkufri inaad diiddo mooye bitaaquuti taaquutka waa kan ilaahay keyrkii la caabudayo inaad diiddo ood ka hor timaado saas bay cibaadadaada kugu xasilaysaa
saas bay cibaadadaada kuugu hagaagaysaa qaabkaas wax lagu fahamsiinaya marka fa fiihi waxaa ku jira baabkan macnaa qowlihi tacaala ilaahay hadalkiisa ayaa daliil u noqon kara saasa ula jeeda waxaa ku jiro daliil u ah ilaahay hadalkiisa subxaanahu wa tacaalayo faman yakfur bitaaguut faman yakfur qofkii ku gaalooba bitaaguuti daaguutka waa kan ilaahay keyrkii la caabudo qofka ku gaalooba yacni wayu'min billaahi ilaahayna rumeeyo faqad istamsaka bilcurwati lwuthqa wuxuu qabsaday mareegtii adkayd xereg adag buu qabsaday qofka noocaas oo kale intaa qof loo baahan yahay waayahay yani athaaminatu masalada sideedaad ana daaguuta daaguutka waxa weeye ama ana daaguuta dheh daaguutku caamun wuxuu caam ku yahay uu camimayaa fii kulli maa shay dhammaantii oo cubida la caabudo min duuni illaahi ilaahay sukadii daaguutka laguu sheegayo wuxuu caam ku yahay oo soo hoosgelaya oo la dhihi karaa fii kulli maa shay kasta oo cubida la caabudo min duuni illahi ilaahay sukadii hadduu marka tacriifkaas ku siiyey oo macnaha waxa weeyaan daaguut maxaa la yidhahdaa haddii aad isweydiinaysay waa kan marka tacriifkiisa marka ana daaguuta daaguutku caamun wuxuu caam ku yahay ee loo daliishan kara oo yacni caam uu ku yahay uu camimayaa fii kulli maa shay dhammaantii oo cubida la caabudo min duuni illahi ilaahay sukadii shay kastoo ilaahay sukadii la caabudo waa daaguut oo asagana raalli ku ah in la caabudo waxaa soo hoosgelaya qof kasta oo diida inuu ilaahay taliyo diintiisu taliso yacni waxa weeyaan kitaabka la isku xukumo diidan qofka noocaas oo kale inta oo khiranaya wuu soo hoosgelaya waa daaguut in lagu kufriyana wey oo la yidhahdo waa ku diidnay waa diidnay wax kastoo ilaahay sukadii ka soo hara cibaadadiisa diida xukunkiisa diida ilan marba hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaado mutaystay koonkaana asaga abuuray inuu asaga taliyaa meesha ka xasilayso inuu asaga taliyo haddii la diido la yidhahdo ilaahay talin maayo diintiisu talin maydo kitaabku talin maayo waa in lagu kufriya lagu gaalooba dadka noocaas oo kalenta oo la yidhahdo waan diidnay kufrinta waxa weeyaan wixii aad ka hor timaado tidhahdo waxaasi waan diiday iyo wixiiba horseed u ah iyo wixiiba taageera waan ka hor yimid waan ka hor jeedaa saas inaad tidhahdo oo diiddo wey التاسعة مسألة سقالات عظم شأن الثلاث يعني عظم شأن عظم شأن ثلاث آيات سدح ذا آيات أرين توضا وينن كيسوي شأن قوى أرين سدح ذا آيات الدن بيسان والقو شيقي دونا arrintaas marka weynankeeda wey saddexda aayadood weynankooda baa saasa loola jeedaa cidamu sha'ni yacni arrinkii weynankiisa wey al aayaati aayaadka athalathi yani athalaathi aayaatin saddexda aayadood arrimahooda weynankood wey saasaa loola jeedaa almuxkamaati ay la sugay ama almuxkamaati ee cadcaddaa aayaadkii cadcadaayoo la sugay oo muxkamaadka ahaa weynankoodan halkan ka fahmaynaa saasaa loola jeedaa ee fii suurati alancaami suuratul ancaam ku jiray saddexda aayadood oo suuratul ancaam ku jirta weynankoodan halkan ka fahmaynaa oo aan darsiga soo qaadanayn ka qaadanaynaa taawi midda uu kaga hadlayay sheekh intaan cinda salafi salafka agtooda salafkuna waa dadkii wixii nabiga ka dambeeyey oo diinta sii waday wey salafkii dambe dhexdooda saddexda aayadood waa ku weyneed qaalibayna ku ahayd waa saxaabadii iyo taabiciintii iyo dadkii ka dambeeyey iyo salafkii agtooda waa ku weyneed aayaadkan waay wa fiiha waxaana ku yani waxa weeyaan wa fiiha waxaana ku jira aayadahaasi 10 masaa'ilu saddex waxaa ku jira 10 mas'alo awaluhaa kan ugu horeeyana ayd ama mas'alada ugu horeysana ay tahay annahyu iska reebid can shirki la iska reebo macnaha waxaa loola jeedaa waa saddex aayadood ee muxkamaad ah
ee suuratul ancaam ku jira salafkii agtoodana ku weyneed salafkii agtoodana ku weyneed waxaana ku dhex jirta buu leeyahay saddexda aayadood 10 mas'alo oo mas'aladaba ugu horeyso lagu dahfurayba ay tahay shirki la isaga digayo waa arin weyn wey aayado lagu bilaabay shirki la isaga digo kuna dhamaanayaan shirki la isaga digo soo arimahooda ma weyna soo arinkooda arin weyn Soomaa oo shirki ka hadlay waa arin aad u weyn saas ula jeeda macna at-taasi'atu mas'alada sagaalaad ciidamu sha'ni 3 aayatin saddex aayadood weynankood wey al-muhkamaati muhkamaadka waxa laga wadaa aayadaha aan la nasaqin oo la sugay oo quraanka ku sugan ilaa hadda ay al-muhkamaati yani xooyan cadcada ee la sugay fi suurati al-an'aam suuratul an'aamna ku jiray ama lagu sugay ama suuratul an'aam ba ku sugan aayaadka saddexda aayadood ee sha'nigooda weyn yahay ee suuratul an'aam ku sugan buu kuleeyahay عند السلف سلف كأكتوض وكوينت وفيها وحنا كجر يعني 10 مسائل سدح مسألة كجرس أولها مدة ظهرنا النهي وإسكريبيد عن الشرك شرك الإسكريبي طبعا لقبض وات فهمتي أما قاب كان كوجو ترجميه ويران وي وأقوه رئيسه شركة اللي سجدي جيبور شركة اللي سجدي مد وجوه رئيس عتاه شركة ومد اللي سجدي جي وآياتي وجوه رئيسي وهي تقول تعالوا وصمرني هذا واحد صمر لجو مشر حيو وحولت شيء ذا مركا قل تعالوا أتلوا ما يعني ما حرم الله ما حرم ربكم مركا لقب الله طبعا هل الصبارو هل إسكافيريو آياتها وشيء يسدح ذا ee arimahoodu ay waaweyn yihiin aayada koobaad suuratul an'aamna ku jira uu yiri oo lagu sugay waa aayada koobaad waxay noqonaysaa qul ta'aalu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an maxay tahay shirki baa la isaga digaya warkaalaya aan idin kaga digay shirkiga warkaalaya aan idin tusay wuxuu ilaahay idin kaga xaaraantilmay subhanahu wa ta'ala waana shirkigu ilaahay idin kaga digay subhanahu wa ta'ala آيات لقب بالله إلا لقى قارو آيات وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل آيات داس إلا لقى قارو إلا آيات سدح آياتات إني تهرجين يا مرك سدح ذا آياتات وين كودان هل كان كفها النيبور إلا ما صامرني صاما بق أقهر يا مكو صامريو معاد يعني عبد الله بن مسعود حديث كيسي أيان كو صامرني وأصو أركتين أدبد وصو فهمتين marka aayaadkaas weynankooda halkan ka fahnay buur oo salafka agtoodana ku weynaa tawarajini inaad fahamtay hal mar at-taasi'atu mas'alada sagaalaad ciidamu sha'ni thalaasi saddexdii ciidamu sha'ni thalaasi aayaati yani saddexdii aayadood weynankoodii wey al-muhkamaati ee cadcada ee la sugay oo la nasaqin ee la sugay quraanka ku sugan في سورة الأنعام سورة الأنعام نكسجن أو لجسجي أو كتالة واحد أنت بكون فسر عند السلف السلف كأكتودا سلف كانوا وصلوا شكل وادتكي دنبي ونبي أماني صلوات ربي والسلام عليه الدين تسيد لبا أقصدي أكتودا وكوينيد بوير سلف كأكتودا وكوينيد وفيها وحنا كتير آيات كاسي 10 مسائل يعني حويا سدح 8 مسألة كتيرته أولها مدة ظهرنا النهي وإسكريبيد عن الشرك الإسكريبي والشرك ريبيد الإسكريبيو أيا كتشر بوير لما أنتو ساسي قال ليا مركا وارين وين مركا وارين وين شركيكو توحيدكو وارين وين شركيكو وارين وين شركيكو وارين وينو وحو بربريا عبادة وحا سميسانيسو دادالكي جهدقاد بحينيسو بربرينيا ريقيا معنا لكن وحويان توحيدكو wuxuu ku sababayaa si kastaba ahaaw inaad jannada ilaahay gasho subhanahu wa ta'ala inaad ilaahay jannadiisa ku dambeysana wax ka qaalisan ma jiro wax ka qaalisan haba yaraatay ma jiro ilaahay jannadiisa inaad gasho waa wax ugu weyn loo cararayo maxaa loo cararaba maxaa loo ordaa maxaa loo cibaadeystaaba ujeedada waa inaad janno gasho qofkan marka asagu cibaadeysanaya ujeedadiisu inuu janno gala ilaahay geyrkiina ku dul wada ujeedadiisu lama fahmin ilaa hadda ujeedadiisu lama fahmin marka ilaahay baa kugu filan way ilaahay baa kugu filan kaligiisa kugu filan
cid kalood u baahan tahay ma jiro. ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala addoonkaygu muku filni miyaa, addoonkaygu muku filni miyaa. jawaabtu waxa weeyaan ilaahay waad ku filanta, ilaahayow waad ku filanta. marka ilaahay addoonkiisa waa ku filan yahay wey. asagaa abuurtay, wax kastana asagaa u haya, nolol, geeri, xanuun, caafimaad, caruur la-aan asagaa haya, asagaa la weydiistaa, asagaa laga magan galaa, wax kastaba asagaa loo bandhigtaa, umuuraha asagaa loo bandhigtaa wey. waay taa mid wey. alcaashiratu masalada tobanaad, alaayaatu almuxkamaat, aayaadka muxkamaadka oo cadcadaa, aayaadkii macnahooda wey. alaayaatu almuxkamaat waa macnaha aayaadka muxkamaadka ah ee cadcadaa ee fii suurati alisraa, suuratu lisraa ku jira. waa aayado kale haddana. wa fiiha waxaa ku jira 18 18 mas'alatan mas'alo, 18 mas'ala ku jirta. waa aayado kale haddana oo suuratu lisraa ku jira, oo ayagana aayado muxkamaad ah baa jiro leeyahay, oo 18 mas'alo ay ku sugan tahay. 8 mas'alo ay ku sugan tahayna bada'aha ilaahay wuxuu ku bilaabay qowlihi hadalkiisa, laa tajcaluu maca allaahi ilaahan aakhara. halkaasaa lagu bilaabay. waa aayado suuratu lisraa ku jira, lagu bilaabay ilaahay cid kale ha la wadaajinina. 18 mas'alo ka soo helay sheekhu. laa tajcaluu ha yeelina maca allaahi ilaahay la jirkiisa ilaahan alle aakhare ee kale, ilaahay kale ha yeelina ilaahay la jirkiisa, oo fataqcuda aada fadhiisato markaasi madmuuman xaalaad tahay mid la eedeeyey, mid eedaysana ah xaalaad tahay. makhduulan yani waxa weeyaan makhduulka waxaa loola jeedaa la hoojiyey, hoog ku dhacay. makhduul mid hoogay xaalaad tahay aada fadhiisato wey. wa khatamahaa wuxuu ku soo gabagabeeyey aayadaha biqowlihi ilaahay hadalkiisa lagu soo gabagabeeyo, walaa tajcaluu. haddana aayadihii sida loo soo waday waxaa lagu soo gabagabeeyey walaa tajcaluu maca allaahi ilaahan aakara fatulqaa fii jahannama maluuman madxuura. saasaa lagu soo gabagabeeyba, meeshii laga bilaabay baa lagu soo gabagabeeyey. marka waxa weeyaan shirki ugu casaalama, qur-aanka soo uga hadlayna wax uga hadlay ma jiro. walaa tajcaluu ha yeelina maca allaahi ilaahay la jirkiisa ilaahan alle aakhare ee kale, oo fatulqaa lagugu rido mar hore maxaa lalahay ee fataqcudaa layidhi, aad fadhiisatood ahaato, saasaa layidhi. marka waxa weeyaan ilaahan alle ee aakhare kale oo fatulqaa lagugu tuuro fii jahannama lagugu tuuro oo lagugu rido macna maluuman adoo ah mid la eedeeyo, madxuuran la fogeeyey. madxuurka waxa weyaan qof la fogeeyeyo yani waxa weyaan eber ah oo la nacay xaalaa tahay. adoo lagu fogeeyey oo lagu eedeeyo eedaysana ah. maxaa lagugu eedeeyey? shirki baa lagugu eedeeyey, eedaysanaad. waxa lagu ciqaabayo waxa weeyaan eedaysanaad. beenbeen ma jirto, dulmi ma jiro, gardaro ma jirto. ilaahay kuma dulminayo maalinta qiyaamaha, dooni maayona ilaahay subxana wa tacala cadaabkaaga, waxba ku fali maayo. haddaad ilaahay u dhowaato, haddaad caabuddo, cadaabkaaga ma rabo. waxa lagugu cadaabayo marka adigaa eedaysana ah, dulmiga adiga wey. waaya fogeynta lagu fogeynayo waa waxaas oo kale wey. ilaahay hadduu ku fogeeyo yaa ku soo dhaweysanaya? ilaahay hadduu ku fogeeyo yaa ku soo dhaweysanaya? cid ku soo dhaweysanaysa ma jirto. marka lagu rido yacni idaa ulquu fiiha samicuu laha shahiiqan wahiya takaadu tamayazu min alghayd. aayadihii ah kulamaa ulqiya fiiha fawj sa'alahum khasanatu alam yatikum nadiir qaaluu balaa qad ja'ana. waa noo yimid rasuul, waa noo yimid, fakadabnaa waan beeninay, waqulnaa maa nazala lahu min shay. ilahay waxba ma soo dejin. saasaan nani markaasaa la dhihi doonaa waad hoogteen. markaasay dhihi doonaa war ilaahay noo barya, ilahay hanaga saara meeshaan. yaa kaa saaray? cid kaa saaraysa ma jirto. halkan waxaa looga hadlayaa masalada 10aad, al aayaatu aayaat almuxkamaat, oo ayagana muxkamaad ahoo cadcad baa halkan looga hadli doonaa, ee fii suurati lisraa'i suuratu lisraa ku jira. wa fiihaa ayna ku jirto ama waxaaba ku jiraba 18 18 mas'alatan mas'alo
oo bada'aha allahu ilaahay uu ku bilaabay biqowlihi tacaala hadalkiisu ku bilaabay laa tajcaluu maca allaahi ilaahan aakhara fataqcuda madmuuman madxuuraa halkaas yani madmuuman makhduulan baa lagu bilaabay aayado kaloo kuu soo wadaa marka oo 18 mas'alo ku sugan buu kuu soo wadaa alcaashiratu masalada 10aad buu kaga hadlay alaayaatu waa aayaadkii almuxkamaatu ee cadcaddaa fii suurati lisraa'i ku sugnaawi suuratu lisraa ku sugan aayaadka cadcaddaa ee suuratu lisraa ku sugan wa fiiha waxaa ku jira aayaadkaasi 18 mas'alatan mas'alo bada'aha allahu ilaahay uu ku bilaabay biqowlihi hadalkiisa aayado oo 18 mas'alo shirkiga ka hadlaysa ku sugan yahay baa jirta oo suuratu lisraa ku dhex jira ka soo akhriso adaa laga raba inaad soo baarbaarto meesha ka bilowdo howsha aad bilowdo suuratu lisraa waaya bada'aha allahu ilaahay wuxuu ku bilaabay aayaadkaas biqowlihi hadalkiisuu ku bilaabay oo ah laa tajcaluu ha yeelina maca allaahi ilaahay la jirkiisa ilaahan alleh aakhara ee kale oo fataqcuda aad fadhiisata markaasi madmuuman adoo lagu eedeeyey eedaysana adoo ah ama xaalaad tahay mid la eedeeyey makhduulan la hoojiyey makhduul ah dulli ah adiga oo lagu hoojiyey baad soo fadhiisanaysaa marka waa dulli waa eedaysane qofka ilaahay keyrkii caabuda ilaahayna waa nooga digayaa subxaanahu wa tacaala war ilaahay kale ha samaysanina war anaa idinku filan anaa idinku filan ilaahay kale ha samaysanina saasuu le ilahi subxana wa tacala haddaad sidaas samayso waxaad soo fadhiisanaysaa ama waxaad dhihi kartaa fataqcuda aad ahaato madmuuman mid la eedeeyeyo makhduulan la fogeeyey oo la hoojiyey macnaa taasoo kale waad dhigi kartaa ood ahaato fataqcuda aad ahaato markaad waad ku fasiri kartaa wa khatamaha wuxuu ku soo koobay biqowlihi ilaahay hadalkiisa aan lagu soo koobay aayaadku walaa tajcaluu haddana walaa tajcaluu war ha yeelina maca allaahi ilaahay la jirkiisa ilaahan alle aakhare ee kale alle waa wax kastoo la caabudo wey sooma wax kastoo la caabuda kelimada tawxiidkuna iyadaaba wada tawxiid ah kelimada xaqa ah laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah waa nahyi isbaat waxbay reebaysaa waxbay sugaysaa yacni laa macbuuda bixaqin ila allah wey laa macbuuda bixaqin ila allah macbuud mid la caabudo oo xaq lagu caabudo ma jiroon alla ahayn yacni wixii ka soo haray alle waxay doonaba ha ahaadaano qabri loo dhowaado sanam la caabudo yacni waxa weeyaan wax kaloo wax laga boombala la caabudo bad la caabudo laa macbuud wax xaq lagu caabudo ma jiro ila allahun alla ahayn ilaahay baa xaq lagu caabudaa kuwaas kale xaq daro iyo baadil baa lagu caabudaa saasaa loola jeeda marka ilaahay la jirkiisa alla kala ha samaysanin isagaasaa kugu filan umuurahaagana ku filan isaga weydiiso waxaad doonto isagaa ku siinaya macna walaa tajcaluu ha yeelina maca allaahi ilaahay la jirkiisa ilaahan alleh aakhara ee kale ilaah waa mid la caabudo aakhara kale wey oo fatulqaa lagugu tuuro fii jahannama lagugu tuuro markaa macnaa waxay ka dhashay allah keyrkii caabudidda aada caabuday caqabadda ka dhalatay waa in jahannama lagugu tuuro macnaa natiijada ka dhalan doontaa bidhi waa in jahannama lagugu tuuro ee hadda fursad baad haysataayo ka toobadkeen ilaahay waa kaaga toobad keenay waa kaaga soo laabtay allah waxaan ku sugnaa jahli allah waxaan ku sugnaa mugdi allah waxaan ku sugnaa qaabdaro quraafo intaad dhahdo ilaahay u soo laabo keligiina yani waxa weeyaan toobadkeen toobadaada iclaami ama qsirayso adiga ku taalla laakiin ilaahay u toobadkeen u soo laaba ilaahay subxaana wa tacala weli fursadaad haysataa haddii kale soo maaha fatulqaa fii jahannamaa lagugu tuuri markaa jahannamaa lagugu tuurayaa maluuman adigoo ah mid la eedeeyey ama maluuman xaal lagu eedeeyey madxuuran lagu fogeeyey fogaanna ha kuu sugnaataa lagugu darayaa fogaanna ha kugu sugnaata suxqan liasxaabi saciir saasa lagu dhihi doonaa suxqan iga fogaada hana ila hadlina buu le ilahi subxana wa tacaala waa lagu fogeeyey marka iyada marka yani natiijadaadu yaysan saa noqon adduunyada intaad joogto fursadaad haysataa hadda haddii aad ku sugnayd markii hore oo ka soo laabo haddaad wax ku darsan jirtay ka soo laabo haddaad la socotay ka soo laabo ahlu tawxiidka kusoo darsoom wadadooda iyo dariiqooda raac
تصلوا للجدا دقنين هذا كود دقيوي ونبهنا الله إلهي وحو نقول براروجي سبحانه نزهنايه على عظم شأن هذه المسألة على عظم شأن هذه المسألة مسألة أرين كذا وين كيسو إلهي نقول براروجنا سبحانه وتعالى بقوله تعالى ذلك مما أوحينا ذلك أرين كاسي مما شيوي أوحى لغو مما أوحى مما شيوي أوحى لغو وحيوذي إليك أذقو أي كمدي ومما وحي كمديهن وحي أوحى لغو وحيوذي إليك أذقو حقاك ربك ربك أكو وحيوذي وحي ربك أكو وحيوذي أي كمد تايوي أو من الحكمة حكمة سنة وحي إلهي كو وحيوذي حكمة أي كمد آياته ويبين ما يستريسا marka ilaahay wuxuu nagu baraarujinayaa aayadaha sha'nigooda inuu yahay arin aad u weyn ilaahay qeyrkii oo la caabudan aysan ahayn wax fudud buu ilaahay nagu baraarujinayaa subxaanahu wa ta'ala saadaradeeda buu ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay rasuulka ilaahayo waxay lagu waxyooday xikmadooda dhan ba halaas ay ku soo biishoonaysa waaba midaaba wixii lagu waxyooday oo dhan way dhalika arinkaasi مما أوحى ووحي لغو وحيودي إليك حقاك ربك ربك أكو وحيودي أو من الحكمة حكمة دعا أو يعني حكمة حلولة شيدا إن هذا يعني حويا لغو هذلي لونا أديك سدي ماشي لغو تلقلي لنا يري حلق لغو تلقلي سؤنا فولي سيدي لغو تلقلي مركوا هذا التوصن lagu waxyooday si toosan buuna u dhacay dadkii loogu talagalay waa loola hadlay adigu sidii lagu yani loogu talagalay baa lagu hadlay bal toosoo soo laabo ilaahay u soo laabo subxaanahu wa ta'ala marka wanabahana wuxuu nagu baraarujiyay allah alle subxaanahu wa ta'ala wanabahana allah ilaahay wuxuu nagu baraarujiyay subxaanahu wa ta'ala nazahnaye ala idami shani hadhihi almas'ala mas'aladan shanigeeda وينكيسو إلهي نقول براروجي سبحانه وتعالى مسألة إني وينتو إلهي نقول براروجي ساسا لو لجدا بقوله هذا الكساءها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة تاسي ووحو إلهي كو وحيودي سبحانه وتعالى ربك كو وحيودي من الحكمة حكمة ديئة حكمة ديئة سكي إلى علي مركا أكو كتسومين تامين نوت ميل نوتك مركا 11 مسألة كو إيطوبانات wuxuu u soo daliishanayaa al-aayatu suurati an-nisaa suuratu an-nisaa aayada ku jirta allatii taasoo tusamaa lagu magacaabay aayatu al-xuquuq aayat al-xuquuqi xuquuqda aayadeeda aayat al-xuquuqi al-10 yani xuquuqdii 10 ahayd aayadeedii bada'aha allahu ilaahi wuxuu ku bilaabay tacaala biqowlihi hadalkiisu ku bilaabayo واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا سورة النساء marka wuxuu sheekhu ku soo daliishanaya aayadaha loo daliishado shirkiga inuu yahay wax la fogeeyay ilaahay agtiisana uusan qiimo ka lahayn qofka mushriga ah marka wuxuu ku soo daliishanaya aayada ku jirta suuratu an-nisaa allati taasoo tusamaa lagu magacaabay aayat al-xuquuq al-10 yani 10kii xuquuqood aayadeedii aayadii 10ka xuquuqood بدأها الله إلهي حكم بالله تعالى سريه بقوله هذا الكيسو واعبدوا الله إلهي عابدا دضو ولا تشركوا هل وداجننا به الله إي عبادتي سبا شيئا وحنا عبادتي سبا وحنا عدها وقدرنا ساسو إلهي سبحانه وتعالى نو شيئا أو حابا كسو جنبه معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله معنى هذا أو أي تهي وحل سكريبيو إي وحل الصغيو واعبدوا الله وإثبات كيوي والسجدة وحلو السجيا إلهي عبادة الله السجيا ولا تشركوا به شيئا ونهي جيوي دي إن لسكت دي إلهي غير كيس إن وحلقة ضيو إن لسكت دي بأرنتا أيضا تلماميسا وعي كد الورقة يعني مركا آيادا هذا صوشيقني يمدن آيادا وقد بيسيبا يعني حويا معناها لا إله إلا الله مركا ضدك انت بدن إلهي غير كي عابديا waxay balmarsan yihiin macnaha ilaahay macnaha kelimada tawxiidka balmarsan yihiin oo qofka hadduu si dhaba u yaqaan macnaha kelimada tawxiidku quraankana uu ka dhaadhacsan yahay tafsiirkiisu kuma dhici karo
kuma dhici karo ilaahay ghayrkii inuu caabudo kuma dhici karo marka aayadaas waxay noo tilmaamaysaa oo leeyahay fasiraysaa macnaha laa ilaaha illa allah loola jeedo laa macbuuda bixaqin ila allah bay noo sugaysaa saas ugu leeyahay الحادية عشرة كو إتبنات مسألة كو إتبنات آية سورة النساء وآية سورة النساء كجرتو التي تصوت السماء لغو مقعابي آية الحقوق العشر طبعا كي حقوقات آية دي بدأها إلهي وحكوب بالله بي بدأها الله إلهي وحكوب بالله بي تعالى سري بقول هذا الكيسو واعبدوا الله إلهي عابدوا ولا تشركوا هل وذاجنين به على شيئا وحنا عبادة دي عدناها وقود دارنا تاوي مدو تلمامية يعني حوين شيخ ونوت تلمامية الثانية عشرة مسألة اللبئي طبنات التنبيه وبراروجين تنقل براروجينيو على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم دردارن كي النبي صلوات ربي السلام عليه وإن نقول براروجي دردارن كي النبي هذا ما حد فاهميس بعد فاهميس إنه صاق لي حديث كي دردارن حديث كي دردارن كو إنه نص قلي بعد يعني دريميسا حديث كي دردارن كذا لي مركا إن نقول براروجي دردارن كي النبي أي إنه كفهمينا عند موته حلقوا دماني النبي صلى الله عليه وسلم حلقوا دماني دردارن كيس محوها طلو وايهي دردارن كيس النبي صلى الله عليه وسلم مركو دماني وحي أهيد واتي وشيغي من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقل قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا دردارن كحلق النبي صلى الله عليه وسلم ودماني دردارن كيس انتا سيد دردارن كاقاتا كاليا شركي اسكي جيرا دردارن كنوع عاصو كالنتو اللي اسكو برارجيو وايه التنبيه واسكو براروجين إن لسبريو على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قدر دارن كيسو لسكو براروجي لسحسوسيو عند موتي حلق قيرده حلق دماني نبي محوكا دردارمي حسوسين لسحسوسين ايو ايان كفهني عشر كي انصمرني الثالثة عشر مسألة سدحي طبنات معرفة حق الله وي إلهي حقي صلى برته وان كسو قد من هذا وحي دردارنا هاي وحي يعني نلوسو ديشني آيده توحيدك كالي هذا وحلا سوق لي حديثك معاذ بن جبل كنت رديف النبي ويري حديثك مركا حق إلهي حق الضوامد إلهي كله هي نوجت المامي بوشيق وكسر دواديو وحو تاغنيها مركا شيق معرفة حق الله براش الله برتو حق الله إلهي حقي علينا كركين وكله مركا وحفي عنوي إلهي وحو كقول لي إن برتو وحفي عن مركا وحا إيمانيسو siduu asaga ugu talagalay inaad u gudato siduu asaga jecel yahay inaad u gudato khayr iyo wanaag fara badan barwaaqana ilaahay agtiisa aad ka hesho taabad gaari الرابعة عشرة سلada أفر طبناد معرفة حق العباد الدومada xaqooda la garto عليه alla ay ku leeyihiin إذا أدوا goortay gutaan حقه xaqiisa markay xaqiisa gutaan ayaguna xaqay alla ku leeyihiin oy gartaan waa tii aan soo sheegaynayo waa isku xiranta xaqad adigu ilaahay ku leedahay ma jirto laakiin xaq waa miduu asagu isku laasimiyey laakiin waa goormee waa goorta asagu xaqiisa la guto wey shardigaas ku xiran ilaahay xaqu nagu leeyahay waa inaan asaga kaliya aan caabudnaa wa xaqu ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu leeyahay waa inaan asaga kaliya aan caabudnaayo cidna aanan cibaadadiisa ugu darin waa xaqu nagu leeyahay xaqan annagu ku leenahayna waa inuusan na cadaabin haddii aan asagu cid cibaadadiisa aan ugu darin marka xaqiisa markaan gudanno ayuu xaqeenna imaanaya xaqeennu markaan xaqiisa gudanno ayuu imaanaya saasaa loola jeeda waaye الرابعة عشرة مسألة أفري طبنات معرفة حق العباد الضومد حقه دول لقرتوي عليه الله يكليهين إذا أدوا قرتي قتان حقه حقيس مركي حقيس قتان إني مركا أيقون حقي لنا يانو أيقو حق إلهي قتيو إلهي عابد هذا النار لو قدرين
marba hadday ilaahay keliya ay caabudeen naar loogu dari maayo lana yani jirkooda naar taaban maayo wey jirkooda naar taaban maayo waa xaqay leeyihiin waa xaqay u leeyihiin markaas in janno la geeyo waana mutaysteen saasaa loola jeedaa maadaama ay guteen ilahay xaqiisa subxana wa tacala ay keligiis caabudeen saasaa loola jeeda alkhamisata cashara masalada 15aad ana hadihi almas'alata mas'aladan laa yacrifuhaa maynan aqoon akharu asaxaabati saxaabada badankooda asxaabta badankooda arrinkan maynan garanayn arrinka waa kee arrinka waa kee arrinka waxa weeyaan inuusan la cadaabaynin qof aan ilaahay u shariig yeelin subxana wa tacaala shirkii qofki iska ilaaliyo inuusan cadaab taabanaynin mas'aladaa way ku cusbayd saxaabada maynan garanaynin waayo maynan garanaynin cilmiga weli maysan helin maysan soo gaarin wey macnaha loolama jeedo marka tawxiidka iyo macnihiisu iyo saxaabada maysan garanaynin loolama jeedo laakiin xadiidkan muusan soo gaarin bal waa laga qariyey waxaa lihi laa tubashirhum ha u bishaaraynin ha u sheegin weli marka qofka si kastoo u cilmi badan yahay mas'alo way iska xogaa way ka yara qarsoomi kartaa way ka yara daahgeli kartaa marka macnaheedu maaha sheekh inuu saxaabada dhaleeceynayo ama uu leeyahay saxaabadu cilmi maysan lahayn ma aha waaya cilmi maysan lahayn maaha marka mas'alada aysan aqoonin waa mas'alada bishaarada laa tubashirhum mas'alada bishaarada bal loo diiday mucaad inuu ayaga u bishaareeyo bishaarada oo ahayd inaan la ciqaabaynin oon la cadaabaynin qofka marba hadduusan ilaahay subxaana wa tacaala u shariig yeelin ilaahay uma shariig yeelo cibaadadiisa cidna uguma daro marka bishaarada noocaasoo kaleenta oo qaaliga ah oo mucaad xataa ka keentay rasuulka ilaahay miyaan u bishaaraynaynin afalaa ubashiru nnaas rasuulka ilahi miyaan u bishaaraynaynin maya buu yiri maxaa ka cad meesha marka saxaabada inay u baahan yihiin in loo bishaareeyo oo mas'aladan loo sheego oo cilmigan qaataan ilan xilligaa cilmi doon bay ahay nabiga sal alay waslm dhex joogay way u baahnaayeen axaadiis cusub oo nabiga lagama maqlay inay ayaguna maqlaan bishaaradaana way u baahnaayeen inay xilligaa maqlaan laakiin maysan maqlin ugu dambeyn waa maqleen oo hadda annagaa maqlayna soo ayaguna way maqleen laakiin xilligaa maysan garanayn ayagu in arrintu sidaa ay u taallo oo qofka hadduu marba tawxiid la yimaadaye ay yani waxa weyaan ilaahi subxaana wa tacaala cadaabkiisa laga badbaadinayo taa wey midda uu ka hadlay marka ana hadihi almas'alata mas'aladan arrinkan oo bishaarada ah laa yacrifuhaa maynan garanaynin akharu saxaabati saxaabada badankood maysan garanaynin qaar inay garanayeenna meesha waan ka fahmaynaa oo mucaad buu ka mid yahay waan ka fahmaynaa inay kala cilmi badan yihiin waa ujeedaaba asaadisata cashara masalada 18aad masalada 16aad jawaazu lkitmaani qarintii inay banaanta alcilmi cilmiga la qariyo jawaazu kitmaani lcilmi cilmigoo la qariyo inay banaan tahay lilmaslaxati maslaxa darteed macnaha waxa weye inay iska banaan tahay cilmi inaad qariso adigoo maslaxada adigoo fiirinayo inay maslaxada ku jirto inay danta ku jirto adigoo fiirinayo sababto waxa weeyaan hadda cilmigan mucaad waa qariyey laa tubashirhum baa la yidhi ka qari cilmigan ha u sheegin haddii loo sheego waxaa imaanayso fayatakilu way isdhiganayaan waxay yani waxa weyaan ku kadsoomayaan tawxiidkooday ku kadsoomayaan oo waxay leeyihin marba haddaan tawxiid la nimaanayno oon nala cadaabaynin maxaanba isku daalinaaba saasay leeyihiin saa daraaddeeda ka qari marka cilmiga qaar in la qariyo waxyaabo qaaroo adigu aqoon aad u leedahay xoogaa inaad yara duugduugto adigoo maslaxadaada ka fikirayo ama maslaxada dadka ka fikiraya waa samayn karta waa samayn kartaa taa iyadana ma banaana lagu dhihi maayo oo wax kastaba iska dheh waxaad ku halaag mutaysanayso wax laga yaabo nafsadaada inay ku go'do wax laga yaabo nafaf badan inay ku go-aan inaad isaga hadasho ogaa waa laga fiicanya ama wax dadka laga yaabo inay ku kadsoomaan cibaadadooda laga yaabo inay ku yaraato inaad dhahdo oo tiraada saasaa saa ah
cilmigina uu jiro waad qarin kartaa xogaa si ay markaa dadku markay cilmigoodu ziyaado oo wax fahmaan kadibna loogu sheego dhexda loo geliyo kadib ayaga isgaranayo waa iscelinayaan jawaazu kitmaan ilcilmi cilmigoo la qariyo lilmaslaxati maslaxad darteed waa loo qarin karaa wax cilmi oo taqaano maslaxad darteeda waad u qarin kartaa السابعة عشرة مسألة تضبي طبنات استحباب بشارة المسلمين استحباب إلا السنية استحباب كحوين سنين يوحى السنة دا استحباب إلا السنية بشارة يعني بشارة المسلمين المسلمين طلاب بشارة بما يسره وحيق فرحة قلينية فرحة قلينية إن مسلمين تلوغو بشاريو إني في عط النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وبشاري دتك خير ugu bishaareeyo wanaag ugu bishaareeyo waxay ku farxaan u sheega qofka xogaa inaad u yara bishaareyso aad ka farxiso way fiicanta farxadaada waxay iman kartaa goortaad adigu dadka ka farxinayso marka dadka inaad xogaa yara u bishaareyso ood arin ugu bishaareyso xataa nabi sallallahu alayhi wasallam waxa la sharciyay ramadaanka markuu soo dhaweey maalin hebel waa ramadaan in la yiraahdo waa bishaaro waana loo baahan yahay ajir badan baadna ka helaysaa way nabi sallallahu alayhi wasallam waa markuu ramadaan soo dhawaado xudii jiray ramadaan baa noo yimid ataakum ramadaan shahrun mubaarak wati uu dhihi jiray marka bishaareyn qofka in xogaa waxyaabo farxad galiyo loogu bishaaray way fiicanta sababtoo waxayaan nabi sallallahu alayhi wasallam mucaad wuxuu ugu bishaareeyay يعني وحويان إن العذاب إن قفكم مربع دوسن إلهي سبحانه وتعالى والشريك إلين قفك إلهي والشريك إلين إنه عذاب متيسنيو قفك إلهي أن والشريك إلين أو عبادتي ستوصن تاي إلهي كلي وحكد ضينا يا مركو حنون صدو مركو جور دونو مركي أرين كرفات سنتو مركو دكان كسلمو مركي حالدو عكرناتو عرورت مركي حنون صت يا الله ذكو هيا قفك النوع عصك الانتا إن بأصلا العذابين وبشارة وين قوي بشارة وين وهذا اسكا إلالية أساقنا دنوبته وين وهذا اسكا إلالية ونن كل من حتى تقول عوسن كل من وإلهي وقطوبتك إنه سبحانه وتعالى تا هذه جرته لعذابي مايو إلهي وقلنا حريصنا يا سبحانه وتعالى هدو الذنوب وين كل انتنا أما الذنب وين وكل انتنا كل بالذنب أساقو الذنب لا الجنة قلي مايه ولا قصر دقي ونارتا لو قصر دقي والذنب قال قصر نظيفين oo wala soo saari kadib jannada la geynaya mar walba jannu ku dambeynaya qofka ahlu tawxiidka marka waa bishaara aad u weyn wey bishaara aad u weyn ku farxayaan ahlu tawxiidka mushrikiinta ba ka nacane walaw kariha al mushrikuun mushrikiinta ba dhibsadano taamidu waayahay istihbaabu wa in la sunneeyo ay sunnatahay bishaarati almuslimi muslimka in loogu bishaareeyo بما يسره وح فرحت قلينية وح كستوى نقط قف كان وح فرحت قلينية هذا أقول بشاريس وح وناك سنة سميسي وناك سنة سميسي واي ماشي وحكا بيعز نحنت إلا قنحي قفك ما في عنا إلا 18 مسألة دا سديد إطبانات الخوف وإن لقبقه من الاتكال اسدقشو على سعة رحمة الله تبارك وتعالى نحريست اللي بلر كيدو أول اسكو ديكتو أدقو إلهي نحريستي سكوت شاني إنا اسدقتو إن لقبقه أرين لقا عفصدنا إيت ضد كان أدو قبقضو إن أرنتها ضد أشيكتو اسدقتان صوما marka ilaahay naxariistiisu waa ballaaran laakiin waxa lagu mutaystaa amal wanaagsan al-iimaan wal amal salih iimaan iyo amal salih lagu mutaystaa yaani lagu helaa ilaahay naxariistiisa subhanahu wa ta'ala marka isdiganin hore u wadadaalkaaga soonka yaani ku dadaal salaada ku dadaal sadaqada ku dadaal hawshaada wado zakada bixi xajka tag taa waxaad ku dadaalka waxaad ku mutaysanaysaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamaha ku abaalmariyo ilaa waxaan abaalmarintu maxay ku timaadaa dadaal la bixiyo wey
وقف عن دلال محوهلي وحوهلي مجر أدوك الدلال السميسي بعد كوهليسا وتقول كوغاريسا أما الدلال السميسي الشهادة كومتيسانيسا شهادة الشرف لكن دلال السميم مايو يا وناقانا الربا لغا يلي مايو مر والبا مركا مثلا معلم كاغا إنا أساقا عطي عدد وركي سيشودن مرنا كسو ورعلين inaad wuxuu kuu sheegay si fiican u barato wuxuu jecel yahay wuxuu kuu sheegay inaad si fiican u barato wuxuu ku baray aad barato ku dadaasho yani uu arko kutubkii adiga aad akrinaysay iyo xadiidkii adiga aad u meerisay oo qof kale sii akrinayo farxaday ut waa farxi waxaadna ku mutaysanaysaa in uu ku siiyo abaalmarin wuxuu doonaba ha ku siiyo abaalmarin inuu ku siiyaad ku mutaysan laakiin haddaad tiraahda ka waran aniga fatalan iska hayo iska baaqbaaqano cashar ma imaanayo waxba dadaal ma bixinayo laakiin waxaan ahay mid macalinkiisa adeecsan wuxuu u dhahaa waa iska yeelaa ma diido warkiisa waa u shaqeeyaa xoog iyo xiilad wuxuu u baahan yahay waa u qabtaa macalinkeyga waa adeecsana haddaad dhahdo soco maysa taas adeecidda waxay ku jirtaa qofka inaad yani waxaweyaan wuxuu ku baray uu mirihiisa kaa arko dhaqdhaqaaq uu ka arko wax samayn inuu ka arko ayuu u baahan yahay marka dhaqdhaqaaqa wax lagu helaa laakiin fadhi wax laguma helo ilaah waan jeclahay waan adeecsanahay laakiin cibaada ma jirto laguma helo tawxiidka keliyan tala saaranayaan wax la jaa ma jiraan tawxiid keliya oo miiranoo eber ah waxba kuu tari maayo maalinta qiyaama waa inuu camal la socdaa iimaan la socdaa shaqo la socotaa dadaal la socdaa juhdi la socdaa wey marka juhdi iyo dadaal marka lagaa helaad abaalmarin heli ujeedada ugu weyn waa midda ayada mas'alada waxa weeyaan athaaminata cashara masalada 18aad alkhawf waa cabsi laga baqayo min alitikaal itikaalka waa dhigashada iyo tala saarashada wey inaad ku tiirsanaato calaa saacati raxmatiillaahi ilaahay raxmadiisa ballarkeeda saacata raxmatiillaahi ilaahay raxmadiisa ballarkeeda darteed inaad ku kalsoonaato tiraahdo waa isdhigtay bis waa khalaas ilahay waa ina xariisanay yani waxaan rabaan samayn laakiin waxbaa dili waxbaa dhici jaad waa cuni qarmar waa cabi xashiishaan cabaya ilahay waa naxariis badan yahay war waa sax ilahay waa naxariis badan laakiin taa hasku halaynin khayr allah ku siiya soo ma taa hasku halaynin war dadaal war khayr samee war juhdi samee war wax samee laakiin haddii ilaahay baa ina xariisanaya laakiin hoos maxaan ka wataa xumaantii iyo balaayadii iyo buxshigii iyo faaxishadii iyo hoosaan ka wadaa ilaahay waa ii naxariisanayaa salaad ma jirto soom ma jiro wax ma jiro cid kaa yeelaysa ma jirto cabsi wey in laga cabsado daamida ayada layska ilaali alkhawf waa iska ilaalin wey iyo ka cabsasho min alitikaali yani isdhigasho laga cabsado calaa saacati raxmatiillaahi raxmadda alle iyadoo laisku halaynaya darteed arrimahaas oo dhan in layska ilaaliyo wey التاسعة عشرة مسألة 19 قول المسؤول كان لويدين يؤراه دي سوي عما لا يعلم وحسن أغين وحسن أقون اللهين كان لويدين الله ألا ورسوله رسولك سا أعلم أك إنو يراهدو معناه وحويان haddii lagu weydiiyo su-aal aadan garanaynin wax aadan aqoon u lahayn jawaab aadan ka bixin karin haddii lagu weydiiyo waa asluubta waxay ku jirtaa inaad tiraahdo allaahu wa rasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisaa garanay oodan iska jawaabin waxaadan adiga aqoon u lahayn marka qowlulmas-uuli kan la weydiinayo oraahdiisa waa looga baahan yahay inuu dhaho camaa laa yaclam wuxuusan garanaynin oo allaahu alle iyo warasuuluhu rasuulkiisa aclam og macnaha wax loola jeedaa qofka la weydiinay mas-uul waxa weyan qofka wax la su-aalayo wuxuusan garanayninna laga su-aalayo muxuu u daliishanayaa sheikhu xadiidkii mucaad weeyaano yaa mucaad atadrii ma garanaysaa maa xaqu llaahi cala alcibaad wamaa xaqu lcibaadi cala allah su-aal baa la weydiiyey sooma mucaad asagu garan maayo waana soo aragnayo saxaabada barankooda maynan garanaynin allahu warasuuluhu aclam buu yidhi ilaahay rasuulkiisaa garanay ma garanay ma aqaan buu yidhi
حق إلهي ليه حق الضوامد يقول لي ما قرن يبور ما كلا ساري كري ساسوير مركا ساسا لقى جنبها واحد قرنين إن هذا ما قرنين ما قنعت هذا واي قول المسؤولي كان لو يديني أراه دي سوي لو جنبها هي عما لا يعلم وحسن قرنين عما شيء لا يعلم وحسن قرنين وحسن قرنين قفك هدي لو يديو أراه دي سال محوي حوله الله الله ورسوله رسولك سأعلم وك على سويديا مركا حل كان لا تاجين هدي وح لجوا يديو أما مسألة ما ديه كرتا الله ورسوله أعلم ما ديه كرتا جوابته ها وديه كرتا سويت وعويان هدو حديثية هدي آياتها إلهي رسولك ساكرني وصح وعى أمبرني نور إلهي رسولك سبا أي كي ماذين مركا إلهي رسولك ساكرني والله كرا دب ماله والله كراو الله الله ورسوله رسولك سأعلم قرني وينو ساير هذا 20 مسألة لباتنات جواز التخصيص جواز التخصيص إن لبني إن دتك قاركود لو قاسيلو لغا قاسيلو بعض الناس دتك قار بالعلم علمك لو قاسيلو دون بعض قوة كلا معناه قارنا إن دتك وح لبرو قارنا أن لبرين هذه سكال أنكو فهمسيو إن دتك قاركود علمي قوني الله أخريو ددنا علمك الله أخريو dadna cilmi laga qariyo dadna la fahamsiiyo inay baraanta oo aysan waajib ahayn in dadkoo dhan sidaad kan wax u baraysa kana aad u barto oo laakiin aad kala saarto dadka tabartooda aad ogaato kan muxuu baran karaa fahmi karaa kan muxuu fahmi karaa cilmigan kana waa bari kartaa kan sahabarin oo ka qari saasaa loola jeedaa macnaha qaybtan macnaha guud hadda waad fahamtay يعني علمك قار إن دتك قار لجو قاسيلي كرو دتك قارنا لجا قارن كرو أي دليلوت معناها كلاو حنكون فهمسين كرا معاذ ابن الجبل علمي كان أو أسجل ليري لا تبشرهم أو أسجل ويري أفلا أبشر الناس علمي كان قيمها بدنهم معاذ لبري يا وحال لجو يري دتك كلها برين هؤشيجين نبيك وحكو قاري لي معاد دادك محوكا كدوين لفتر كيسا كتسومي كرا سوما لفتر كيسا توحيد اسكوها اللين كرا صعابة واسلمت لكن معاد نبيك خاص بو بريو وحو يري ادقان كو بريا وحو اوغيها انو يعني حوغا عبادي السنية وسنكو كتسومين انو هو كور هيا مركا دادك قارنا ان علمك اللغو قاس يلي كرو قارنا لغا آموسين كرو علمك نوعا سوكال انتا معناها كالوحوي waxaa laga yaabaa adiga inaad fahmi karto oon caqiidada iyo kutubtan yaryarka aad u baahan tahay in lagaaga bilaabo haddaan ku dhaha ka waran arday kale oo yani xubin fiqiga ya minhaajka baranaysan kuu geyn dhib ma leh iskala baro haddaan ku dhaha ka waran ma fahmi maydi waxaad u baahan tahay xoogaa tartiib baad u baahan tahay kutubta yaryar lagu soo akhriyo lagu fahamsiiyo caqligaaga iyo fahamkaaga intaa ku kooban ama waxaad tahay qof da-aho aan fahmi karin culumta kale aan fahmi karin laakiin kan baa lagu bari kuwa kalena waa laga qaysanaya waa laga qarinaya dabcan haddana misaalkaas kalena waad ku fahmi kartaa marka taa waa banaan tahay wey cilmigan in laga qariyo cilmigan lagu fahamsiiyo oo lagu kala saaro cilmiga way banaan tahay wixii maskaxdaada qaadayso lagu baro wixii maskaxdaada qaadin laga yani xubiyaan laga dhaafo marka mucaad baa lagu qaas yeelay dadka kalena waa laga qariyay qof walba wuxuu qaadi karo unbaa la qaadsiiya jawaazu takhsiisi bacdi الnaas dadka qaarkood in lagu qaas yeeli karo banaanaanshaheeda waa jawaaska waa inay banaan tahay takhsiiskana waa in lagu qaas yeeli karo bacdi الnaasi dadka qaarkood in lagu qaas yeeli karo inay banaan tahay bilcilmi cilmiga dadka qaarkood in cilmiga lagu qaas yeeli karo inay banaan tahay duuna alcilmi duuna albacdi dheh dadka kale sukadood duuna albacdi kuwa kale sukadood waxaa la yidhi saxaabada ha u sheegin adiga sabaro asagaa lagu qaas yeelay duuna albacdina waa saxaabada kale oo waxaa la yidhi iska dhaaf ha u sheegin ha barin baa la yidhi waa isdhiganayaan haddii aad barato ee mucaadow adiga lafkaas isma dhigan kartid laakiin nabi sal ly slam mucaad buu ku qaas yeelay marka
waad ku qaasiyeeli kartaa dadka qaarkood cilmigan, dadka qaarkoodna cilmigan aad bari kartaa. laba nuuc baa dadka loo kala saari karaa oo cilmi ahaan, oo anna maxaad iiga qarin ood kan u bari, adiga ma qaadi karto kanaad u baahanta, kanna kan u baahan yahay, kan uu fahmi karaa. marka dadka marka saas in wax loogu kala shaandheeyo inay banaan tahay, cilmigana dadna in laga qariyo dadna aan laga qarin ay banaanta. qof waxaa laga yaaba markaad cilmi u sheegto inuu wax laayo, inuu wax laayo. مثلا waxaa tidhi man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid, qofka maalkiisa sokadii la dilo waa shahiid. markaasuu wuxuu isku dayayaa xoolihiis inuu u dagaalamo, markaasuu dadka layn, baabi'in, dhammayn. wuxuu leeyahay anigu waa isdifaacay. oo haddaa isdifaacis ma dadkaad dhamaynaysa, ma dadkaad dili? waa maya. waxyaabaha qaar fasahaadka uu ka dhalan karo, fasaadka uu ka dhalan karo waa inuu qofka iska ilaaliyaa, uu qarin karaa, waxyar xoogaa yaraa dah saari karaa si markaa lagu kadsoomin. jawaazu takhsiisi, inay banaan tahay in yacni waxa weeyaan la khaas yeelo ama lagu qaas yeelo bacdi nnaasi, dadka qaarkood in lagu qaas yeelo bilcilmi, cilmiga, duuna bacdin, dadka kale sukadood, kuwa kale sukadooda dadka qaar in cilmiga lagu gaabsan karo inay iska banaanta. taa waan ka fahmaynaa. dabcan kaadna waa fahamtay ayaan rajeynayaa. hadda masalooyinku baan maraynaa, wili 10 maanan bilaabin. 10kii hore unbaa masalooyinkiisa iyo fahamkii waxyaabahan ka soo qaadanay ayaan wadnaa. 21 21 masalada 21 tawaaducuhu, nabiga isliididiisa wey, inuu isdhuldhigayo, lirukuubi alximaari, dameerka koridiisana uu isku dhuldhigayo. macnaa dameerka inuu koro xoogaa waa isliidid wey, inuu yani bini aadam yahay, inuu muujinayo inuusan awood inuusan lahayn muujinayo. taa baa laga fahmayaa. qof walbana sida looga baahan yahay, cashirkaasna laga qaadanayo, inuusan qofka isla weynaanin. qof ma jiro isla weynaanaya ilaa ilaahay dhulkuu la jaraa. qof ma jiro isdhuldhigayo ilaa ilaahay sharaftiisa kor u qaada. qof haddaad ara isliidayo, isdhuldhigayo, aniga wax ma ihiyo, miskiinkan baan ahayo, isliidaya haddaad aragto, ya sharaftiisa iyo magaciisu ilahay kor u qaadaa subxana wa tacaala. qof istaagtaagaya haddaad aragtana ilahay dhulkuu la jaraa. qaaruun waan soo aragnayo waa istaagtaagi jiray, ya ilaahay wuxuu la jaray dhulka. nebi maxamed waa isdhuldhigay, waa isliiday, ibni aadamnimadiisa, isaannimadiisa ayuu gartay, inuusan waxba ahaynuu gartay, ilaahayna magaciisa kor u qaaday. marka hadba saad meeshaad isdhigto wey. haddaad isla weyni wado ood qabiil ku faanayso, oo qab ku faanayso, oo la xoolo ku faanayso, waxaad doontab ku faan, adigu ha isyas waxba ma ihidhe. dadka kalena ha iskala weynaanin, hana isku arkin dadka inaad ka sharaf badanta. haddaad isku aragti inaad dadka ka sharaf badan tahay, hoog baa kugu dhacay. ha isku arkin, dadka isku dhex dar, la fariiso, la sheekayso, la shoor, tala ku darso, la qosol, dhexdooda ku jir dadka. ha istaagtaagin oo nin weyn ha iska dhigin, bini aadan yar baad. markaas sidaas samayso, ilaahay magacaaga iyo sharaftaada kor u qaadaya. sharaftaad doonaysay isla weynidaada markaas yaba ziyaadi, oo sharaftaadu ilahay kor u qaadaya subxana wa tacaala. laakiin markaad isla weynaato ilahay dhulkuu kula jarayaa, dhulkuu kula jaraya. marka tawaaducuhu, isdhuldhigidiisa wey nabiga sal ly. tawaaducu waa isdhuldhigid ama isliidid, qofki inuu xoogaa isliido. dadka kale way weyneynayaan, rasuulka ilaahay wey nabi maxamed sal alayh wasalam waa nala weyn yahay, 1000 jeer buu nala weyn yahay nabiga sal alayh wasalam. laakiin asaga muxuu sameynayaa? inuu isdhuldhigayo. saxaabadiisa wuxuu la saaran yahay dameer, isdhodhooris iyo iga sika iyo waa idilayaa iyo waa shaki iyo ma jiro, waa ku dhex jira. ardaydiisu ku dhex jira, ardaydiisu gawaarida la raaci, ardaydiisu la sheekaysan, ardaydiisu su-aalo weydiin. saasaa isluub wey oo loo baahan yahay qof walba muslima inuu qaato. saasaa loo bahan yahay macna. waa yahay tawaaducuhu wey isliididiisa sal alla alay wasalam nabiga. lirukuubi alximaari, dameerka inuu la raaco, ama dameerka inuu raaco. lirukuubi alximaari, dameerka fuulidiisa. rukuubka waa inaad fuusho, alximaari dameerka aad fuusho. marka dameer fuulidda inuu isku liidayay nabi sal alay wasalam,
faras qurux badan iyo faras sidaan iyo gaadiid qurxoon iyo ma raacayo. weliba waxaa kusii jirta maca alirdaafi calayhi, iyadoo lala saaran yahay, iyadoo lala fadhiyo weliba ay la raacin maa. kan sheekha ha loo daaya maa, gaarigan asoo qaas u yahay. waxaad arki qof diyaarad qaas lagu soo qaadayo. ya soomaalidu waa dhib badan yihin. kan wax laayo, wax fasahaadiyo, wax dhibo agtooda sharaf buu ka leeyahy. waa tii shalay aan soo sheegaynay. ya qofka xoogaa dhiig fara badan soo cabay, ya oo isbaaro fara badan soo dhacay, libax baa leeyahy, kor baa loo qaaday, jagash saraa la gaarsiin, diyaarad qaasa lagu qaaday. laakiin midka yacni wanaagsan ahlu khayrka oo ahlu diinka waa la yasi. marka nabi sal alla alayh wasalam asagaa isyasaya, dameer buu raacay, saxaabadiisa qaaraan la saaran oo gadaal ka fadhiya. isliidid wey, marka isliidid, islu dhigid. saxaabadan maxay dareemayaan kalsooni ay nabiga sal ly slam kusoo aashaan bay dareemayaan. la qofka hadda wuji cidhiidhiya maxaad ba su-aali. ya nabi sal ly slam wuxuu yidhi mu'minku waa mid dadka soo dhoweeya, asna dadkuu soo dumaa, asna waa la soo dumaa. khayr male qofkaan dadka soo dhoweyneynin, oon soo dumaynin, asna aan la dumaynin buu nabi sal alay wasalam. khayr male qof haddaad aragtaba wuji cidhiidhi ah, oon wejigiisa lagu tashan karin, oo markaad aragtaba isla weyni ay ka muuqato. ya adiguna soo dhoweysan maydid, asna u dhowaa maydid. sababta waxa weyaan waadba ka cabsanba, ama warku kugu xumeeyaa iyo ama sheekada kula qaloocataa iyo baas leedahay. laakiin qofka hadduu yahay qof furfuran oo weji furan hadduu yahay, weji furan baa la galaa. soomaalida yihahdaan qalbi furan, yani weji furan iyo qalbi furan baa la galaa. marka arrimaha noocaas oo kale intaa loo baahan yahay. furfurnaanta iyo yacni isdhuldhigada, isliididda waa shay aada u muhiimsan wey. isla weynidana waa wax laga fiican yahay. iska ilaaliya, arrin sahlan ma. dumarkan in badan waa lagu eedeeyaa, war dumarow isla weynida iska jira, hana isla weynaanina. qabiilkaagiisan kula weynaanin, adigu maadan dooran. quruxdaadiisan kula weynaanin, adigu maadan dooran. adigu maadan dooran, shaksiyadaada ka hadal. yaa tahay adigu. qurux iyo qabiil iyo iyosan ku sirin. isla weynida iska jir, isdhuldhig, dadka isku dar way si aad khayr u yeelato. way tawaaducu isliididiisa wey lirukuubi lximaari, dameerka raacidiisu maca alirdaafi calayhi, asagoo lala saaranya, isagoo lala saarayn buu dameer saaranya. dameer oo haddana lagula saaranya, waa arrin cajiiba wey, aan la gaari karinba. waaya way ciriirinaysaa iyo gacal isma ciriiriyaan soomaalidu. gacal isma, dad isjecel isma xiriiriyaan, yani isma ciriiriyaan. ciriiri ma, hal sariir baa isla seexanayaan, hal dameer baa isla raacayaan. saxaabadii nabiga waa isjecel yihiin. laakiin dad isneceboo siyaso hadday ahaan lahaayeen, walaalo iga deg baadhi, waa ku dhibsadayba. waad nici, waa isla weynta. kaligaa waxaa rabtaa meelaad ku raaxaysato, isku kala warwarto. isla weynin baa kugu jirta. marka qof haddaad aragta keligiis jecel, keli nool ah, qunyar socda, duumo wey. saas wey macnaa, duumo. iska ilaaliya dadka noocaas oo kale wax fiican maa. war dadka isku dara, ha lagula wadaago, sacanka ha lagula wadaago, sariirta ha lagula wadaago, fadhiga ha lagula wadaago. saas way macnaa. nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi qofna yuusan qof kale fadhi uga kicin, walaakin tawasacuu watafasacuu bu nabi sal ly slam, watawasacuu, isku waasiciya, kala sigta bu nabi sal alay wasalam. marka fadhiga ha lagula wadaago, oo sariirta ha lagula wadaago, oo wax kasta ha lagula wadaago. keligii baa halkaan fadhinayaayo istaagtaagi ha dhihin, yaan laigu soo sikin, yaan lai cidhiidhin, iga siko, ha ii soo dhawaan, hay taaban. waxaas iska daa, taaban maxaa taa haddaan lagu taabanayn. oo maxaad dad kale maxaad deerta isla weynin ma fiicnaa. walaa yani soomay xadiiskii, yani aayaddii luqmaan ulxakiim wiilkiisa uu ku waaninayay, dadka dhabankaaga ha u taagin, walaa tamshi fi lardi maraxa, in allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur. mid kastoo faam badan, istaagtaag badan ilahay ma jecla. dadka dhabanka ha u leexin, hana iskibrin, sankana ha taagin. ilahay ka cabsa subxana wa tacala. saasaa lagu leeyay macnaa, dadka la mid tahay isgaro. waayahay ha lagula fadhiisto wey maca alirdaafi calayhi, isagoo lala fadhiyo nabi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, iyadoo lala fadhiyo. maanta waa arbaca sooma, waa dhamaynaynaa insha allahu tacaala.
الثانية 20 حديثك حديث يعني 22 مسألة ده لباتن يسدحات جواز الإرداف إسل الراعد إني بنانته على الدابة دابة لسر الراعو قاديد دابة معاوي قاديد وي إن قاديد لسر الراعو إني تهميد إسكب بنان واي أصارك نسوما شروط باجرت لكن قاديد كالسل الراعيو ضد كاسل الراعيو إنو قاضي كرو إنو ها قاضي كرو ومهم وعاكلو مهمة ضد كاسل الراعيو ضد كلا أجنبي إني صناهين نين رق إيه نين رق هويني هويني نين إيه حاسكيس إيه وحي لميدا واسل الراعي كران واي هاي marka inay banaanta in gaadiid la isla raaco dib male jawaazu al-irdaafi isla raacida inay banaanta jawaazku waa banaanid irdaafkan waa in isla raacido isla fangalid ala daabati gaadiidka in la isla raaco inay banaantahay bana ka dilishanayna way ama ka faa'iideysanayna way الثالثة 20 سدح إيا اللباتنات كيور لبي لباتنات بوا 22 23 سدح إيا اللباتنات بامرنا مسألة سدح إيا اللباتنات عظم شأن هذه المسألة عظم شأن هذه المسألة تنوينان تذ هذه يعني عظم شأن هذه المسألة مسألة وينان تذو وشيء مسألة وينان تذا مسألة وكها الله يوحويان واه بشارين إن لسوب بشاريو فإذا أي لا هي تانا وانكفهم كرنابو يعشر كان سوق عطنا إن لسوب بشاريو ضدك لو بشاري فإذا وين باكو جرت فإذا وين باكو جرت واي مرك النبي صلى الله عليه وسلم دمير بوفولي جري وان سو أرقني دمير كيسو حال أورن جري عفير مقعبو بالهابا سو هذا حيو يعني لو ما بيحيو حولها مقعيا لو كلا بيحيو صوما واي عفير بالأورنجري حمار النبي صلى الله عليه وسلم دمير النبي صلى الله عليه وسلم دمير كاس إسلا راعي جرين دمير وناكسنو حوق له ضد قاضي كروها لبا قفود قاضي كري كبدان بوها النبي صلى الله عليه وسلم دمير كيس عفير الأورنجري مسألة وين كذا وكهلا إنه بشارين إن لسكوب بشارين إنه في عتم حي لي معاد بعد دمير كلا صارن وان لو بشارين يا معاد بشارة ضدك ملو ذاك مايا ولو ديد أسقى لو بشاري وفرحي معاد رضي الله تعالى عنه وعاقلوا كفهمنا 24 لباتي أفرات مسألة هي لباتن أفرات فضيلة معاذ بن جبل معاذ بن جبل فضل جيس ديراتكو إلهي السيبي كمت إن صحابة دن أسقى لك دورت يا ولير علمي قاس أسقى الله بري بل لير كقري دتكو أسدقنيان نبي أسقى أوك إن معاذ كلبت كيس ودتك كميديا وبني آدم كميديا أسدقن كرو حدنا معاذ بولو ذاقي فضل بوليه من معاذ نبي قال كل سونسيي إنه سنسدقنينين سوما مركب معاذ فلقي يسوي معاذ وحياه فلقي كله وعكمد النبي قال بيجري وان كنت شعله ورقفوا النبي يجري كورن وان كنت شعله هاي صار نصيب وين ما نصيب وين وي إن نبي محمد صلى الله عليه وسلم كي أمدا معلم كي أمدا هو قاميه إسلام كهدو كير هذا كروان كنت شعله سقف وين ما قف وين وي قف وين وي وقف انت سقف الله قدر وان كنت شعله معاذ marka waa eray aan yani caadi ahayn waan ku jeclaa waa erey weyn wey marka fadliga uu saxaabada kale dheer yahay mucaad bay ku sheegaysaa intaas oo dhan ma jiro saxaabi kale fadiilatu mucaad fadligiisa ayay noo tilmaamaysaa fadliga mucaad ayay noo tilmaamaysaa waayahay hada wabillahi tawfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam